السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada اسم channel إن شاء الله maanta waxaynu halkaan uga hadli doonaa barnaamijyadii taxanaha caafimaadka. muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa dumarka ay kasoo baxdo garka sidaan wada ognahay waa astaan ama calaamad u gaar ah ragga ama qofka labka ah. haddaba maxay tahay tinta kasoo baxda haweenka garka iyo shaarbaha iyo xabadka? af ingiriiskan waxaa loo yaqaanaa hirsutism baa loo yaqaanaa. markay haweenka tin kaga soo baxdo meelaha ragga timaha ku yeeshaan sida wejiga, gaar ahaan garka iyo shaarbaha, ayaa waxaa la yiraahdaa hirsutism. tinta kasoo baxda wejiga waxay khaas u tahay ragga sida dabiiciga ah. cudurkan wuxuu ku dhacaa boqolkiiba 10 haweenka da' kasta ay ku jirto. yacni qofka haweeneyda haddii uu garka kasoo baxo timo iyo shaarbaha iyo waa xaalad aanan dabiici ahayn oo qofkaasi markaasi waxbaa ka khaldan caafimaadkiisa. maxaa sababa cudurkan tintan kasoo baxaysa dumarka wejiga, garka iyo shaarbaha? haddaba waxa ugu caansan ee sababa cudurkan waa in haweenka uu ku bato hormoonka ragga ee loo yaqaano androgenka, kaas oo ka sameeyo astaamaha ragga sida garka iyo shaarbaha. badashada hormoonada sababa in haweenka yeeshaan astaamaha ragga oo kale waxaa keena cuduro badan oo kala duwan, waxaana ugu caansan kuwa ku dhaca qanjirada soo daaya hormoonka androgenka iyo ugxaanta haweenka. sidee u gartaa inaan qabo cudurkan, ama sidee ku ogaan kartaa inaan qabtid cudurkan? waxaad ku garan kartaa in tinkaaga soo baxdo meelaha ragga timaha kasoo baxaan. yacni qofka haweeneyda ah waxay isku arkaysaa in ay kasoo baxaan timo meelaha ay ragga kasoo baxaan. masalan, tusaale ahaan, ragga timaha waxay kasoo baxaan shaarbaha, dhabarka, garbaha, xabadka. ma ahan calaamad qof dumara lagu yaqaano, waa meelaha timaha u khaaska ay ragga kasoo baxaan. waxaa kaloo la socon kara oo uu qofka dhibkan ka cabanayo isku arkaa codka oo weynaada. waxaa kaloo la socon kara oo qofka isku arki karaa qofka qaba xanuunkan ama cudurkan dumarka kasoo baxaya timaha, qofka codka oo weynaada, findoob kasoo baxa wejiga, timaha oo daata, naasaha oo yaryaraada, murqaha oo weynaada, xubinta taranka haweenka oo weynaata, caadada oo yaraata ama aan jirinba, miisaanka oo siyaada. dhibaatooyinka ugu badan ee u keeni karo cudurkani ayaa ah walwal badan iyo walaac iyo walbahaar iyo xishood badan. cudurkan ma keeno dhibaato muuqato oo aan ka ahayn tintaasi kasoo baxda qofka haweenka ah ee uusan rabin. haddaa isku aragtid dhammaan calaamadahan aan kor kusoo xusnay, fadlan la xiriir dhakhtarka cudurada qanjirada iyo hormoonada ku dhaca ee loo yaqaano endocrinologist ama dhakhtarka cudurada haweenka ee loo yaqaano gynecology, iyo dhakhtarka maqaarka iyo timaha oo loo yaqaano dermatology. muuqaalka intaas buu ku egyahay. insha allah haddii aad ka heshay muuqaalka la wadaag asxaabta, sii sheer garay. haddii aad ku cusub tahay kanaalka, subscribe-ka noo saar. haddii aad horey noola joogteen, like-taa naga ilaawin. insha allah waxaynu idiin soo gudbin doonaa mar walba muuqaalo caafimaad iyo barnaamijyo ku saabsan culuumta caafimaadka oo aad ka faa'iidi doontaan. muuqaalkeenii maanta ku saabsanaa mawduucan garka kasoo baxaad ama timaha kasoo baxaad dumarkana intaas buu ku egyahay. haddii aad qabtid wax su-aala oo ku saabsan mawduucan, fadlan qaybta commentiga igu reeb. waana mahadsan tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.